koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan dilka bajaaj la dile dilka dadka askarta isdilaysa laami gubowga hanti baabe faqiira gawrac gabdha kufsi warniyo qoladiinna gulluuda balaayiya baasin baa ku jirtaane abwaangaariya wuxuu yidhi nin wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin bilaaya waa noogni baggeeni beerkeena isku dhagi barkinteena waa jiifweeni awixii maalin bukleena u jirtiin dana kale baaldheena niig tagtaani dhahi waryahoy warwar ma haysiine maanta buuqa iyo bannaanbaxa beledka ka jira waa la yaabay macaawino miyaa la keenay war wax ma ogide buuqa iyo bannaanbuxu wuxuu ka bilowday wiilal bajaaj watoo la dilay waxaanse aad uga xumaaday dadkii falkaa ka dhiidhiyey oo bannaanbaxa sameeyey ayagiibaa waxay sameeyeen dhibaato kale waxayna isoo xasuusiyeen sagaashankii sababtoo ah laamin la gubo iyo hantida ummaddoo la burburiyo baabuurtoo la jejabiyo dukaamadoo la bililiqaysto sagaashankii soo bilaabat marka dadka waxaan u sheegayaa inay dareenkooda muujiyaan waa u bannaan tahay laakiin waxaa ceeb ah adoo dhibaato ka dhiidhiyey inaad dhibaato geysato adigii horta niman yahow maalin dhoweedoo bishaan bilowgeedii ahayd rabshadihii sidaanoo kaleeto u dhacay oo wiilkii bajaajlahaayoo la dilay ka bilowday guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha boolisku waa kuwii u tegey bajaajlayaashii bannaanbaxayey guddoomiyaha gobolkuna waa kii ka codsaday bajaajlayaashu inay joojiyaan bannaanbaxa ninkii wiilka dilayna waa kii ka codsaday inuu cadaaladda hor yimaado ee horta dembiilahaas codsigii guddoomiyaha ma aqbalay oo cadaaladda ma hor tegey midda kale waxaan idin leeyahay maantana sidii oo kale guddoomiyihii iyo taliyihii booliskuwa waa u tageen dadkii bannaanbaxayeye ma ka codsadeen inay bannaanbaxa joojiyaan dembiilihiisa ma ka codsadeen inuu cadaaladda hor tago tego wax mataraayo tallaal iska rabaa war jugjug meeshaada joog miyaad ku jiraysaanuun aryaadhaha anigu weligay ma arkin dembiile codsi ku imaahaya kowdhe muga anugu madaxda gobolka iyo saraakiisha ciidamada waxaan dhihi lahay sidaan ha loo dhaamo shacabkana waxaan dhihi lahay idinkoo dhibaato ka cabahaya dhibaato kale ha samaynina shicibka kugishamuunta waxaa la yidhi shini ku cunaa kaagaroon warnimayo war ma haysaane muqdisho mashaariic badan baa ka jirta waxaan ogaaday dad badan oo inta wax dilay la dhoofiyey war ma dilaa tigid noqda maxaad noo sheegaysaa adiga war mahayad baa wixii wax dila dhoofisa war wax ma ogidiina waxaa la yidhi xarfaan wareerta ayaa askarta ku biirtay maalin dhoweedna waxaan arkay laba xarfaan oo ku sheekaysanaysa cariifow hebel markuu wiilka bajaajka wata dilay oday hebel gurigiisaa lagu qariyey kadibna walaashiisoo dibadda jirta tigiday hore uga soo dirtay marka xariifkaygii ha ku mashquulin hebel yurubuu joogaa hadda ma waxaad leedahay dilka bajaajluhu waddada ugu fudud oo lagu dhoofi karuu noqday war xaalku wuxuu marayaa farmyaalka xaafadda tu askari farm askari tu gacanku dhiigle farm gacanku dhiigle tu yurub war bajaajta inta badan tahriibka baajinaa loogu gaday dhallinyarada wadata magafe ka baaji magafe muqdishaha ku madax dhabay joogtaahe ka warran he war yaa ciidanka wax dilaya kuwa shabaab ka soo goostaa ka mida oon dilkaba ka maarmin warniyow baarlamaanka waxaan leeyahay shabaabaa ku jiro askartana ma shabaabaa ku jiro waryaa maadaan maqan shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan horta nimayo beriga waxaan ka cadhooday shacabka la dilaayo markii labaadna waxaan ka cadhooday laamiga hadda walaalaha in turkiga noo dhisanoo la gubaayo iyo hantidii masaakiinta dadweynaha la dhacaayo iyo baabuurta la burburihaayo marka waxaan dhihi lahay haddii dhibku gaari inaad ka cabato waa kuu bannaan tahay laakiin inaad wax ku sii dheesho sharci dhigi maayo aryaa ma waadan maqli jirin dhiig kumayr hebel la dhig miyaadan maqal war waxaasi waa qalad ku saxe miyaan laga ilbaxayn war warkayga dhex gelna iga suga shacabka waxaan dhihi lahay bannaanbax waa bannaan yeehe waxaad bee'ayso boos u yeel bannaanbax waa bannaan yeehe waxaad bee'ayso
soo boos u yeel laami aad leedihiin maydka laamiga yaallaa dad aan loo yar lahayn oo layska laayo miya war amay tubaha qaranka ku jiraan anigu waxaan la yaabanahay tubaha qaranku meeshay maraan ilaa wadooyinkii o dhan waa xiran yihiin war dilalka iyo dudbaxyada aad sheegaysaan tubta amniga iyo cadaaladii hoos tagtaa sideedaba tubtaasi in la xiray ku fiicanta maxaad la cabaanahay jidadku waa xiran yihiin nimayow anigu bannaanbaxaya waxaan ad sheegayseen wax kaloo ka sii daranaan ka xanaaqsanahay tanya shalay milatari iyo baliisaa isdilayaan maqlaayay mugga ciidankii qaranku ee hadday isdilayaan yay difaacayaan shacabkiyaa u maqan daacish iyo shabaabba waa isdilaana maxaa u diidaya inay ciidanku isdilaan lama dabaal isku duufeen dadweynaha ku dhammaahayo waxaa iiga ciil badan isdilka daacish iyo shabaab ninka ciidanka u soo qaatay war nin kastoo hadlo waa kan la ciil baya hayee maanta maalinta neerfoosada adduunka miya war adeer gafuur cadhooday nimi ku yaallu dhiba war maanta waa maalintii bac ka sii bacdii madoobeedaa bannaanka ku taal ninkii bay kala tageen aryaadhaha warkaan hayga dhex gelinina anigu ciidama isdilaan sheegaye ciidan aan difaac ka rabno iyakina isdilaaya aaciil igu dilaaye how difaaciida lagu dire dadkaaga xaduusi dile difaaciida lagu dire dadkaaga xaduusi dile war waa runtaa anna waxaan dhihi lahaa dadaal iyo run iyo daacad baa deeqa aadmiga damac iyo khayaanadana waa lagu dembaabaa ka daadilista waa daalantaha uga sii darin warnimada waxbaa isku daalina arrintaas anaa ka gebiyey indhoweydba hooyaalayey hooyaalayey hooye iyo hooye hooyaalayey waan ka haajiraye aan habeeyo hooyaalayey hooyaalayey hooye intaasaan idiin sheegaya ayaanan sii badin sidaasoo kalean uga xumaado hooyadi inya la kufsada haddana la sii dilay war aniga hooyadii garow lagu dilay aadan uga xumaaday waxaan kaloo ka sii xumaaday isbitaalkii meydkeeda la geeyey wuxuu yidhi $300 iyadoo laysiin la aasi maayo waxaad ula yaabee mayd dayn lagu leeh lama duuge anigu waxaan la yaabanahay reer garowga kufsigii gaalkacya ka dhacay 3 maalmood bay ka bannaanbaxayeene maxay uga aamusan yihiin tan magaaladooda ka dhacday war waa iska buuqaysaane maanta baarlamaanku amnigii ka doodayaan berrina waxay wacayaan madaxda ciidamadoo dhan waxayna leeyihiin dhibaatadan maxaad wax uga qabala'dihiin ka jawaaba war amniga dadkii loo xil saaray inay waxba ka qaban waayeen waa u jeedaane ma xilka ka qaadaan maxay ka waraysanayaan war golajaab ku jira xil ma qaadi karo war nimayo maanta xaaladda soomaaliya waxaan ku soo xasuustay gabar liibiya u dhalatay oo 50 sano jir ah lana yidhaahdo saajida shariif waxay bilowday inay soonto dadkan ay ku baraarujiso si ilaahay nabad u siiyo liibiya waxay kaloo tidhi markaan yaraa waxaa lay dhihi jiray soo weynaaw laakiin waxaan ogaaday bay tidhi dhibaatada liibiya haysata dadka waaweyn inay tahay marka waxaan leenahay soo weynaada mugga dadka waaweyn inay saqiiraanaa dhaantaxay u dhihi weysa war anuu mandheeraan la yaabay oo dhakhaatiir laga afduubay guddoomiyihii mandheera wuxuu yidhi war dhakhaatiir in la afduuba maahayn waxaan codsanayaa buu yidhi meeshii laga afduubay in degdeg loogu soo celiyo maantana odayaal dhaqanoo ergaahu ka daba diray marka waxaan la yaabanahay shabaab laga codsanayo dhakhaatiirtaad afduubtaan soo celiya war adeerow war ma haysaane somalilan safiiradii caalamka ayaa ku sii qulqulaya war wax ma ogidin wasiir ku-xigeenka dastuurka wuxuu yidhi dastuurka somalilan waa inay ra'yigeeda ka soo dhiibataa marka waxaan la yaabanahay cidda u geynaysa oo dhihi doonta ra'yigiina ku darsada waryaadheen war ma haysaane dhallinyaro ka socotay somalilan ayaa maanta waxay ka qayb qashay barnaamijkii isxilqaan ee tiyaatarka qaranka war sanatar muune cumar waxay tidhi jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan baa ka soo jeeda marka baarlamaanka soomaaliya ma kii yurub oo waddamada badani ku midaysnaayeenba war wasiir goodax barra shacabku wuxuu ka codsaday meelaha bannaan ee waddooyinka inay soo sheegaan si loo xiro war waxaa joogaa la yidhi muqdisho shiikh ku nool shaki ku nool shirin ku nool shidda ku nool iyo sharci ku nool iyo laftirkaaga shartu nool kowka war yaa anugu raja ku nool baanahay war naga taga dawaya nabad alla haydin yeele